wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug ayaa maanta soo bandhigtay waxqabadkii boqolkii maalmood ee la soo dhaafay. wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa sharaxaad ka bixiyay waxqabadkii boqolka maalmood ee la soo dhaafay oo ay ku jiraan deegaano miyi ah oo ay ku booqdeen dad tabaalaysan oo biyo la'aan hayso. baahiyaha biyeed ee ka jira deegaankayaga wuxuu ka mid yahay deegaanada Soomaalida danu reer galmudugnahay ee ugu xoolaha badan leh ee ugu daaqsinta wanaagsan cimilada oo isbedeshay abaar isdaba joog ayaa taabtay dadka iyo dunyadu way fog yihiin oo miyiga fog bay jiraan in lagu sheego in la baahan yahay waxa ka xanuun badan oo ka marqaati dhow in indhaha ku aragtid sida mas'uuliyaduna farayso aniga wasiir ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha caasimadda xildhibaanada iyo madax kaleeba waxaan u bareernay inaan meelo fog oo xitaa mararka qaarkood nafteenu khatar ku gashay inaynu u dhaxno oo u warwarro oo u dhaxamoonno soona aragno axwaasha in badan oo ka mid ah galmudug biyo la'aanta iyo tabardarrada haysata inay u baahan yihiin gurmad taasoo aan baahinay haatana meelo ka mid ah ay ka bilowdeen in biyo la siiyo sida afweyn oo kale oo shalay aan ka abaabulnay magaalada dhexdeeda inaynu beesha caalam kaliya aan u baaqine aan mas'uuliyad ahaan anagu tijaabka gacanta gelino aan isku dayno caag biyaha Allah ka dhig inaynu geyno annaga iyo ka wasaarad ahaan iyo waxgarad kale waxa u suurto gashay shaladan la soo dhaafay in oonkii afweyn ka jiray biyo la bixiyay ku dayasho ka bacdina aan saaka isleeyahay afweyn gudoomiyaha gobolka kor qabaan in biyihii meel lagu soo la waayay inta kale waxaan rajaynayaa in ama madaxda dawladda ha noqoto ama dadka wax la siiya ha noqoto ama cid kasta oo kaalmo geysan noqoto sida afweyn loogu gurmaday in loogu gurman doono oo maartay shaashadaha laga arki doono dadka iyagoo isqaatay oo ammaan qaata taasina waxa weeye ilaahay fadligiisa waxa ku suurto gashay dhaqdhaqaaqa wasaarad ahaan aynu samaynay xildhibaan Cibaado Yuusuf oo ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegtay inay la xisaabtamayaan wasiirada la midka ah wasaaradda biyaha oo aan waxqabadkooda soo bandhigin. waxaan ognahay wasaarado badan oo shaqeyn sida loo magacaabay ee aan gobolkan waxba ka qabanin waxaan la diyaarnahay in la xisaabtano wasaaradahaas aan shaqeyn maadaama aan nahay baarlamaan haddana aan nahay sharci dejin inaan la xisaabtano haddii aanan qabanin wixii leedin xil saartay waxaad ogaanaysaa miiska wadahadalka iyada imaan doontaa maalmaha ka mid ah ama shaqada ku weydii doontaan ama shaqada ku heli doontaan qof walba waxay keensta ayaan wada shaqeyn doonaa. gudoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Nuur Cali Jimcaale ayaa isna sidoo kale ugu baaqay wasiirada xilalka ka haya maamulka galmudug inay shacabka ugu shaqeeyaan sidii loogu igmaday xilka. waxaan tuhunsannahay inay jiraan wasiirro badan oo aan islaan armaysan shaqo ku maqnayn hadday ku maqan yihiinna aan weli la ogeyn marka iyagana waxaan ugu baaqaynaa in qof walba ee halkan mas-uuliyad ka qaaday waa ammaanadii inuu ka soo baxo oo dadkii uu ammaanada u qaaday uu u guto oo shaqadii loo diray uu u istaago dadaal tabartiisa inta ay tahay iyo garashadiisa. Nafisa Xirsi Maxamuud, Universal TV, Dhusmareeb.